waxaana uu ku weesnaa tuurayo ayaa habeenkii xalay ah waa xaafada garsoor ee waqooyiga magaalada Gaalkacyo ay ku dileen gabar ka mid ah dadka deegaanka taasoo ay dileen xilli ay ka soo baxday salaadii taraawiixda. Nimco Cumar Shire oo 22 sano jir ahayd ayaa dhuunta tuuray laga geliyay waxayna ku geeriyootay isbitaalka weyn ee magaalada Gaalkacyo sida ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka ee isbitaalka. dilka kadib ayaa goobta waxaa soo gaaray ciidamo ka tirsan maamulka Puntland kuwaasoo bilaabay howlgallo ay ku baadigoobayaan kooxihii ka dambeeyay dilkaasi inkastoo aysan ku guuleysan inay gacanta ay ku soo dhigaan. Sargaal ka tirsan ciidamada maamulka Puntland oo saaka taleefanka kula xiriiray ayaa sheegay in weli ay wadaan baaritaano ku aadan sidii loo soo qaban lahaa kooxihii ka dambeeyay dilka loo geystay gabadha ardayda ahayd oo xalay lagu dilay magaalada Gaalkacyo. arrintan ayaa waxay imaanaysaa xilli ciidamada ammaanka maamulka Puntland ay ka wadaan waqooyiga magaalada Gaalkacyo howlgallo ay bacaha ay uga fiiqayaan baabuurta. Libin Cajiib Xaajiraad oo kulmiye Gaalkacyo.